يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاه. بسم الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، walaalayaal waxaynu ku soo jirnay taariikh nololeedkii asxaabtii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, kuwooda ugu muga weyn, kuwooda ugu iimaanka weyn, kuwooda loogu bishaareeyey jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo adduunka dhex socdo. waxaan soo dhammaynay afartii khulafaa uraashidiin almahdiyiin ee uu ugu horreeyay abubakr sidiiq, oo ku xigo cumar khataab, cuthmaan bn cafaan, cali bin abi taalib radia allahu tacaala canhum ajmaciin. ilahay baana ku mahadsan in afartaas aas ugu soo xirnay. waxaynu maanta asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam hal teelteelna usoo qaadan doonaa, maalin walba mid baan ka soo qaadan doonaa oo sidayna alla ilahay maxaa lagala bixi karaa faa'iido. sheekooyinka iyo taarikhda ka sheekeynana ujeedkeedu waxa weeye maxaan ka faa'idnay, maxaa nogala gudboon. waa dadka aanan nebi ahayn oo maaragtay joogay waqtigii maaragtay weliba ugu xumayd oo asnaam la caabudayay, ayaa marka ay wanaag iyo qaateen iyo khayrka ilaahay subxaanahu wa tacala uu ka dhigay dahab oo ilaah uu qiimeeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay gaareen inuu fowqa sabca samaad kasoo salaamo. waxaan maanta ka sheekeynaa saxaabiga anas ibnu malik alansaari. anas ibnu malik alansaari waa nin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu duceeyey oo yidhi allahuma arzuq lahu maalan, ilaahu ku irsaaq maaragtay hanti iyo awlaad, wabaarik lahu una barakee. saxaabiga jaliilka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu rumeeyey asagoona arkin. bal ka war, asagoona nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam arkin oo maaragtay muscab bin cumayr saxaabiga dilka ku dadaali jiray asxaabta dadkii jooga magaalada madiina munawara. hooyadii baa islaamtay umu salama oo ahayd haweeney aad iyo aad u qiimo badan, la dhihi jiray alqumaysaa alrumaydaa bint milxaan, oo ahayd hooyo xaqiiqatan iimaankeedu aad u sarreeyo. waynu u imaan doonaa taarikhdaasi mar dhanbaan insha alla haduu ilahay waqtina siiyo aan uga faa'iidaysan doona insha allahu tacaala. waa hooyadii xataa markii uu ka dhintay malik ibnu nadar, markuu ka dhintay ku fakirtay aabahoodba wuxuu ku dhintay gaalnimo. seed ku badbaadisaa labada wiil, bara bin malik iyo anas bin malik, labadaba waxay u qabatay shahaadateynki u qabatay. anas asagoo cumrigii ubax soo kariyo kale ayay waxay u qabatay inuu shahaada islaamka qaato. anas habeen iyo maalin waxay uga sheekayn jirtay hooyadiis xub alislaam, islaamka jeceelkiisa. habeen iyo maalin waxay uga sheekayn jirtay maxabata rasuulillah sal slam, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jeceelkiisa. ilaa jeer la yihahdo walaa garwa faludunu tacshaqu qabla alcayni axyaanan. la yaab ma leh inay dhegtu mararka qaarkood ka dheerayso xagga jeceelka aragtida. waxaadan arkin inaad mararka qaarkood laga sheekeeyo aad u jeclaysa. wuxuu curigaa yarka ku fakiri jiray an yamdiya ilaa beyti ilaa nabiyihi lkariim, inuu u dhaqaaqo xagga nabiga calayhi salatu salam magaalada maka asagoo yar. marka jaceelka nabiga calayhi salam oo ka batay asaga wuxuu leeyahay anas asagoo ka sheekeynayo, aniga iyo ciyaal kooxa anako ah ayaan markaa maqalnay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo aadayaa magaalada madiina. waxaan markiiba go-aansanay inaan dadka ka hortaga noqono. subax walba waa ka lahnaa anakoo ciyaaleh banaanka istaagnaa, dadku waxay fulaan geedaha meelaha laga sahmiya. ma jirin maaragtay wax soo sahmiya oo soo arkay ama diyaarad soo qaada ma jirin, ama wax kasoo warrama qalab kasoo sheekay meesha soo maraya ma jirin. safar dheer baa la soo gelayaa. marka wuxuu yidhi dhalinyarada markaan soo baxno subax walba oo banaanka magaalada imaano waxaan ku hugownaa inaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam arkin. laakiin ani shaksiyan wuxuu yidhi kurbo iyo walba ii zaa'ido, alla hilow ba ay hayo, shawq ba ay hayo, maad aragtid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo indhahaada ku doogsadaan. maalinka dambe raggii odayaasha magaalada ugu weyn waa soo baxay oo dhaheen anna muxamed qad jaa. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa uu soo galay magaaladii, waa uu soo galay oo daafaha magaaladu taagan yahay. dadkiina waxay u dhaqaaqeen naxwa ariiqi lmaymuun,
الذي يحمل إليهم نبي الهدى والخير وحاول دقائقين إلي وضدي بركة سنيد النبي هروك خيرك وصاحبك أها أو سوهي وضدي سودي سودي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه صاحبك أبو بكر الصديق صاحب الغار كي قد كل جري حين مركو النبي صلى صلوات الله وسلام عليه والله حين أظلم كل شيء وحين مركو النبي عليه الصلاة والسلام صلى وحو البو وين نورنه مركو النبي أدوك بحينا وحو البو حين أخذ المجدي أظلم كل شيء ولا مركو النبي أدوك بحي مركو أدوك صلى أنور كل وحو البو نوري أو مارت نور كذا بحي ولا أنس مالك والله حليه مركزته أو حسوس مالك يجوه الرئيسي يا النبي إنه ساري وحول وحن أدوك كمثله أما كمثله مجري بوليه dadkii oo dhan way soo dhaweereen hatta aman gabdhaha dumarka wasibiyaan والسبايا الصغيرات gabdhaha yaryarka faqad alawna سطوح المنازل وجعلنا يتراءين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وحين قبله iyo dumarkii waxay markaas ku ay saarayeen saqafada guriyaha ayagoo la istusayo nabi maxamed waakee allah waakee ayuhum hu waakee laba kala aqoon nabiga iyo Abubakar xagga daada isku dhawaayeen wax badan kala sareeyeen waana soo sheegay salawaatu allah wasalaam alayhi iyo anas inta isku jireen laba sano iyo muddo yar baa lagu qiyaasaa saka sabahaate nabiga alayhi salaatu wasalaam markuu soo galay magaalada Madiina ودد كلا قوسين مركو حالي قاو كود النبي عليه الصلاه والسلام انس ذكر ابو بكر الصديق صحابي جليلك امر كوددي اي امدي كلا اسنادين انو قفكا يحيى النبي عليه الصلاه والسلام وايو ددك انت بدل النبي ما اركدي صور لغا هيسري وي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هويدي با waxay sameysay markay qof walba nabiga u yimid oo hadiyad u keenay oo soo gaaray salawaatu allah wasalaam alayhi ay u timid هذا العجيب يقول يا رسول الله لم يبقى رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا قف والبو ورأي أنصار كمدا رقودي يدومر كودي من دمهر إلا قف والبو حقوق هديت أنا أقول هديت أباتك وسير حتى هاي ويلكي هديت كاغا دغيا ويلكيغا أيان هديت كاغا دغيا قرة عين كي أنا إنه كدوك سري سي uu noqdo ku adeego ku adoon ku adig ku shaqeeyo ayadoo ujeedkeedu uu taas ka weyna adoon uu noqdo ma hayne fikirkeedu wuxuu ahaa inuu qofkan wiilkeeda uu noqdo wiil nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ka shidaal qaato wiil gacanta nabi maxamed alayhi salaatu ay barakaysan ku karo nabi waxa leeyay isla markii wuxuu eeg Anas wuxuu qiimeeyay farxadiisa iyo inuu rabo nabi alayhi salaatu wasalaam misala Anas jacayl baa wajigiisa ka buuxo حب النبي كبوح وانا كسو شيغني وحو ku taban jiray inuu nabiga ugu tago magaalada Makka inuu magaalada Madiina ka baxo Makka ugu tago qalbigiisa taas ku weerid nabiga markuu soo fiiriyay misaal waa faraxsan yahay farxad baas uu iscilin leeyahay inuu ku boodo raba rasuulka hal mar hooyada ay siideesa gacanta ka baxo leeyahay isla markii nabiga uu soo qabtay madax saawa salaah habbu si gacanta uu maarto goshu gashtay waa uu soo dhaweeyay markaas uu haye waa ka gudoobay أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحاول نوض نصيب بدر والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيه النبي مركبة وحكى إيه الكيس وكام الدقيق وسودوا النبي عليه الصلاة والسلام أنس سودوا الآن أسرس مركز وحالي مركي النبي بقى عيسى أنس ها جعل وقبه أيوب مركي وحقوق بدلي ورئيس عربي جاء تسقي أما يرين باليدا هذا ابن وويل مركي لسير يا بري wiilkaygiyo markii xuruuf ridal yaa buray wiilkaygiyo waa jacayl maxabadkii uu dambeysay Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu leeyahay nabiga markiiba magacyadaas aad u qaalib ugu yeeray wuxuu leeyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa noqdo qofka cadayga uu qaado waxa noqdo qof 24 hours 24 saac wajigiisa arkayo waxa noqdo qof u dhow nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa ka bartuu leeyahay waxa qof kale uu ka baran waxa noqday qof ka nasiib badan wiil abi haysto wiil يا أبيه ولا جوه نصيبه سويلك أبيه وحب بدله كفائد أي كفائد حيا خير خلق الله أي مركز للجوه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبالي مالوها كمده النبي عليه الصلاة والسلام أيعمل إدري في أنس يسوع أديك بيدرسوا لي أنا جو بحي وأديكم مقن بعد نحن حن كل عيالي دي عيال ما كنا قانا أما لو يقانا عيال مركو عيال كلا أركو وحي سنبو اللوبة أنس حين واسكلا قبصده عيارتي ونعي كقلي واسكا باشالي أذيك النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدري ماشي وكله بل فيري معاملك النبي عليه الصلاة والسلام أنس عليه مركب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودرب صدي ويسوي
asoo dhag la qabta lahayn oo yaaban wiilka waxa ku dhacay leh way qof meel u dirtay oo wax ka soo socdo waysan jirin adiga waa isweydiin lahayn Anas xulay nabigu soo baxay mise wuxuu arkay anoo iska baashaala ciyaal iskaga dhex jiro akhlaaqda wanaagsan fiir walaal bal darsiga meesha ku jira fiirino nabigu wuu soo baxay wuu soo gabaday meesha gadaal meesha dhabarkiisa istaagay mardo dhag ka siiyay jaf Anas xulay saamir oo fiirin mise waa nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam waa qaracmay nabiga fiirin markii wuxuu dhawla cadeyn kama soo dhixin war maxaa ku dhacay ama meesha ku diray midhiin intuu saamir u dhawla cadeyn Anas oo meesha ku diray ma aaday soo qosay nabiga Anas fiir ya rasuul hadda baxaya ma hadda baxaya wuxuu naxdinta dhanbo waxa iga tirtirtay farxadiisa nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam maanta anaga waxa laga wiilaa dhashay maruu koob yar jabiyo inaad guri dhan aad maartay aad buuq iyo balay ku dartay waa koob guri ka jabo oo laga yaabo waxba inuu sanahayn waxa laga yaabaa wax yar oo maxaa ku fadhin cunugan qalad yar galay ama walaashi ama wiilka urbaaxay in maanta adduunka soo jabis hada huwa mu'amalka nabiyina fi sallallahu wasallam alayhi iyo akhlaaqda iyo ma ardarsiga meesha ku jiro waxa laga yaabaa qof aan qaldamin ma kullu ibn khata wa khayr al khata at-tawabun qof walba qalad ku dhacaya waliba kuwa xagga markii dambiga la galo ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu jecel yahay kuwa soo laabto waxa dhici karayso in wiilkaada kaasib qada ayaama muddo uu meel yar maanta rag iska raacay inta si fogeyn lahayd inaad soo dhaweystid oo la fadhiisatid oo abo waxa ka qaldan hooyo waxa ka qaldan maxaan sameeynaa dhool cadeyn iyo farxad Anas ibn Malik wuxuu leeyahay nabi kaleey salaatu wasalaam markuu saa'iri oo kun isku ir oo naxay waa dhaqaaqu leeyahay wallahi ilaahi baan ku dhaartay laqad khadamtu nabi waxaan u shaqeeyay 10 saniin 10 sano u shaqeeyay ma qaala li shay sanactu waxaan sameeyay ma dhihin lima sanactu waxa u sameeyay maanta walaal shaqaalaha ku shaqeey fiir bar fiir qof ku shaqeey oo shaqaala ku ah waxa laga yaabaa hadduu shaqada yar aad dhibsatid inaad waji u badashid oo carawtid bal wuxuu leeyahay wallahi 10 sano wuxuu ahaa shaqaale nabi kaleey salaatu wasalaam waliga ima dhihin maxaa u sameeyay ولا لشيء تركته لما تركته waxaan ka tagayna ruuxa waxa uu qawisay ma dhihin balka xataa uf ima dhihin ima tusin jirin waji caraysan bal nabi kaleey salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray ma sha Allah wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala qadara wa dhacayaan wama qadarullah haqa qadri wuxuu ilaahay u talga dhacayeen ana soo ka soco ana soo leeyahay nabiga muamalaat oo kala kulmay waxa ka isaas wuxuu leeyahay nabi kaleey salaatu wasalaam wallahi gacantiisu ka sheekeynaya jilaac qabowga lahayd ما مسست ديباج حليها ما تابن مارت ديباج وحكوده حريرته إذا تابن إلا وحكجلع سنة كمارت صفت كاهد النبي عليه الصلاة والسلام قعدتيس وحينا ما مسست مارت مارتي وتقولي سرين مسكي مارت عن عبر بالك اللي أنت ما تقولي سرين إلا وحكود قيد عرق النبي محمد أما نذكر النبي عليه الصلاة والسلام وحدنا مسا سيدا وين النبي عليه الصلاة والسلام ودوا مارت أوقع قاعد الدرس أنس المال بحوليه النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بركة لجاره بركة بالك سلا جوله وحكرجنا مسكحدين وماشي اللي باهي أنا عول قاش شكستان وحكى شكينا تاريخ ذا معنا كجلو شك حرمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بحوليه هاي الصبح بركة لجاره أو مالك لجاره أو وقت ويهلو ويرجل وحوليه يا بريا ويل كيجي وكاره وحوليه وش بيجري سيد قف بعرت نصيحوي كي وارد سيد روب وبعرت ضرورة بركة دعيو الله ورصده أيوة أنا أقول نقدري صد ضرر هوريسو أنا وحيد وحنا نقدر والكي أصلا ضرورة الدايس وإياها النبي عليه الصلاة والسلام وحيد يجري يا بريا ويل كيجيو الفيريا حتى وحلا ويل أي أو نشي دان هويل كله الله وديكا ويل ولا بقولي كوجو وحلا يعني أنا عرفت أتكجعش كوك أصلا كجعش أتكوك أنا كجعش وكلا جعشه بل النبي عليه الصلاة والسلام ويل كأصلا بدل لكن هذا جعيل إيه محبة إيه كالسوري iyo firfircooni inuu hayo qalbigiisa ugu hayo ayuu tusay nabi kaleey salaatu wasalaam wuxuu yidhi jiray yaa baray wiilkaygiyo in qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghish li ahad fa'al wiilkaygiyo subhanallah alazim hadii aad awoodid oo waa ku bariyo adiga oo qalbigaaga ama habeenka ku galab ku dhaco adiga oo qalbigaaga ku jira wax xasidnimo ama xiqdi ama uur ku taalo balay ku jira urka fa'al saasame maxay walaal qalbiga ilaahi waasaylaha illa man atallaha biqalbin salim qiyaamaha waxa badbaadayo qofka qalbigiisa nadiif yahay nabiga wuxuu ku tarbiyanay wiilka yarka maadaama uu yahay ubax soo korayo inuu noqdo qof qalbigiisa nadiif ah qof qalbi nadiif ah oo umadi qalbi buko oo qalbi cudur oo ka badbaadsan inuu koriyo raba maadaama uu gacanta nabiga ku koray salawaatullaahi wasalaamu alayhi Anas wuxuu yiri nabiga wuxuu yiri jiray ya buraya wiilkayga in hada min sunnati
taas sunnadeyda ka mid tahay waman axyaa sunnatii faqad axabbanii waxaan ku leeyahay iyo wanaaga ku sheeg waa sunnadeyda qofkii sunnadeyda soo dhoolaya anigu i jeclaado qofkii aniga jeclaadana kaana maciya fi ljanna jannada ayuu ila gelaa maciga maalinta qiyaamaha laanna qofka nabi maxamed alayhi salaatu sunnadiisa ku dhaqaaqa maanta sunnada xaggee naga dhigto walaalayaal waxaa laga yaabaa qofkii inuu markuu salaada assalaamu calaykum yiraahdo waa sunno iska bax wallaahi sunnadoo laga tago waxay berri u gudubtaa in faa'iida lagu imaado haddaad tusaale ka bixiyo ninka dukaanleyda ah ama ganacsiga ka shaqeeya ama ganacsada ah had iyo jeer wuxuu ku fakiraa suu faa'iido ku heli lahaa laakiin hadduu raasamaalka usoo dhaco berri dukaankiyaa kacay soo ma qofka markuu sunnada ku dadaalo waxa u badbaadayo lafih waxa u badbaadayo khayrkii nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu dadka ku tarqiibin jiray ama ku boori jiray inay u carraa sunnada maalinta qiyaama waxaad xasuusta walaalayaal oo ilaahay subxana wataala qofka hor istaagayo ilaahay markuu qofka miisaanka lasoo saaro miisaanka la keeno qofka la saaro oo camalkiisa miisaanka la saara ka wadaayo ilaahay wuxuu leeyahay qofkaan ma leeyahay wax sunnooyin ah aan ugu ziyaadiye camalkiisa waa meesha soomaalida dib i xasuusiyo dumarka ay aada u garanayeen marka yaayada ay iibinayaan maarata labadan xabo suubis waay labadan xabo waxaa waay waa suubis waxaa laga qofkaas inuu beri soo laabto ilaahay subxaana wa tacaala raxmadiisa wax ka mid ah ilaahay mar rab inuu ummadda cadaabo waa raxiim ilaahay subxaana wa tacaala in yasha yarxamkum oo in yasha yucadibkum waay hadduu doono uu ku naxariisan hadduu doono uu ku cadaabi ya rabbi subxana wa tacaala marka anas ibn wuxuu dhihi nabiga alayhi salaam wuxuu igula tali jiray inaan qalbiga nadiif ka dhigo oo ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay aan ku xirmo talooyinku nabiga anas wax ka mid ahayd wuxuu ku dhihi yaa bunay wiilkaygiyo idaa dakhalta calaa ahlik fasallim wuxuu yidhi dad ehelkaad u gashay wuxuu beri jiray taxiya waa tarbiyad in carruurta lagu tarbiyeeyo wiilka inaad aabba kaale waad weynaatay waad kortay hadda waqti la joogo marka guriga iska soo geli laba raba carruurta kaliya ma ah guriga waxaad arkaysaa wiilal iyo gabdho ay maaratay isla degeen ama aabbahii cidda ay joogaan qofka goortuu guriga soo galay aan la garanayn goortu ka baxay aan la garanayn laakiin islaamka wuxuuna baray qofka inuu guriga soo assalaamu calaykum waraxmatullahi si loo ogaado in guriga qofka yimid markuu baxayna assalaamu calaykum uu yidhaahdo nabi wuxuu leeyahay salawaatullahi salaata faa'iida leedahay nabi wuxuu leeyahay awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum nabi wuxuu leeyahay war waxba idin sheegaa haddaad samaysaan aad ma isjeclaanaysaan qaaluu bala yaa rasuul noo sheeg markaasuu yidhi salaata dhexdeeda ku fidiya ma waday kaytaa marka wuxuu leeyahay nabi wuxuu ugu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh haddii aad guri galaysid ama aad guriga soo galaysid ama aad guri cid kale galaysid wuxuu barayaa tarbiya waa la tababaraya wiilka waa la korinayaa training buu ku jiraa dadka ehelka salaatana barakatan calayka aday baraka ku tahay wa calaa ahli beytik dadka aad salaatayna barakay u tahay oo qofku markuu yidhi assalaamu calaykum 10 baa loo qorayaa markuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah 20 baa loo qorayaa markuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu 30 baa loo qorayaa markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tababarayaa anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu in uu tababarka qaato ujuurtaan iyo ajarkana uu qaato anas ibn malik walaalayaal wuxuu u noqday qof ducada nabiga ku dhacday nabigu u khidmay jiray wuxuu fiiri subxaanallahi alcadiim nabigu waxaa kaloo ahaa baa salawaatullahi wasalaamu calayh qof dadka abaalkooda gudo isla saxaabi kaloo isla anas maadaama ku jiro laakiin aysan kala fogeen isku khidmadaasa kusoo xasuustay nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi asxaabta kamid oo maalin u khidmeenayo habeenada kamid oo qiyaam leyl tooda ugu soo kacay nabiga habeenkii istaagi jiray cibaado badan buu lahaa marka nabigu wuxuu kala yiri weysadii iyo biyihii iyo caday wixii nabigu u diyaariyay nabigaas yidhi tacaal hebelow kaale sal tucta baa hata wax weydiisu yiri waa lagu siinayaa waxaa laga yaabaa aniga iyo maaragtay iyo inta la midka ah oo imaamku iska daciifka yahay haddii baata la yidhaha nabi maxamed uu dhihi lahaa wax weydiiso wax sheego inay adduunya iyo balaayo sheegan lahayn bar saxaabada adduunka waxba lama ahayn qiimo lama lahayn isla markaba saxaabiga wuxuu ku fakeray ee uu yidhi rasuulka ilaahayow haddaa ay tiri wax sheego wax kale ma rabo muraafaqataka fi ljanna muraafaqataka inaan jannada rafiiq kula dhaqo taasaa kaa codsanaya rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi haye saasaa rabta haa dee alaa ina salacatullahi alghaaliya jannada ilahay waa qaali mid samee haddii acidnii bikatrati sujuud waxaad u kaalmaysaa inaad sujuudda badisid haddaa rabto inaad jannada rafiiq la noqotid ku dadaal inaad sujuudda ku dadaasha marka nabiga calayhi salaatu salaam
asxaabta uu markaas gurigiisa joogo ee ka agdhow wuxuu barayay macaamilka macaasharaadka iyo akhlaaqda iyo cibaadada dhacwalba ka dhisay marka nabiga saas u ahaa salawaatullahi wasalaamu calayh anas ibn malik markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu gurigiisa joogay uu had iyo jeer dhex fadhiyo meesha waxyaalo ka qaato wax ka mid ahayd wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii martida u imaado martida u soo gasho wuxuu isku dayi jiray qofka gurigiisa imaado asagoo faraxsan inuu ka tago oo macaamilku nabiga ka qaad salawatullahi wasalaamu calayh oo nabigu waxaa lihi xataa wuxuu ka karahsanay markuu arko wejiga ma tusi jiro qofka inuu dareenkaas geliyo bal wuxuu ilaalin jiray waa taqaan xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam lahaa qofka mu'minka waxa ugu fiican muslimiinta qofka mu'minka ood gelisay qalbigiisa farxad qof walaalka ah inaad qalbigiisa farxad gelisay oo nabigu maalmaha kamid ah wuxuu fiiriyay kacbadii uu eegaa layidhi markuu kacbada sa yidhi kacboy xurmad iyo ixtiraam baad leedahay laakiin mu'min qalbigiisa la jabiyaa kaa mu'minka in adi lagu burburiyo iyo mu'minka in qalbigiisa la jabiyo waxaa fudud in adi lagu burburiyo qalbiga mu'minka saas u weynaa mucaamalaadka nabiga uu ka bartay ayay anas ka mid ahayd anas wuxuu ahaa faqiih ummadda khayr gaarsiiyey fara badan marka waxaa isqabsaday waxaa ahayd taabiciintii oo xoogaa arrimo isku diinaya maxaa yeelay anas faqiih buu ahaa wuxuu ahaa qofkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ag joogay ka ag dhawaa dadka axaadiista nabiga ugu warinta badan oo xataa markii laga yimaado kitaabka ilahay sunnada markii maaragtay qur-aanka laga yimaado oo sunnada nabiga calayhi salatu wasalaam laga sheekeynayo bacda kitaab illahi waxaa waye saxiixeynka bukhaari iyo muslim inta badan waxaa ugu badan axaadiista warinteeda waa abu hurayra iyo maarata anas bin malik radi allahu tacala canhu marka anas wax badan buu nabiga kasoo guuriyay marka rag baa isqabsaday oo ku dooday xawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam ma jira mise ma jiro darkaas laga cabayo ma jira marka kelimo cajiib uu yidhi wuxuu yidhi maa kuntu adunnu an aciisha xataa araa amhaalakum yatamaarawna fi lxawdi laqad taraktu cajaa'iza khalfii ma tusallii waaxidata minhuna ila sa'lat illaha an yasqiyaha min xawdi nabiyi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay horta isma lahayn buu yidhi waxaad noolanaysaa da-da noocaan oo kale ah oo waxaad soo gaaraysaa kuwo ku doodayo xawdka nabiga ma jiraa mise ma jiro wuxuu leeyahay habarihii aan kaga imid meesha hadda gurigii aan kaga imid habar ma jirto tukato duqoshin ka wadaayan oo ay ka mid ah oo tukato ilaa sa'alat ilaa waxay weydiistaa an yasqiyaha inuu ilahay ka waraabiyoba xawdka nabiga marka wuxuu siiyey su-aal jawaab caqli gaaban meeshaa maanta ku doodaysaan xawdka ma jira iyo ma jiro duqooshinkii oo cilmigoodu yaraa baa waxayba ilaahay weydiistaa ilaahayo xawdka nabiga calayhi salatu wasalaam iga waraabi calashan yaqiin iyo kalsooni ay og yihiin inuu xawdkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jiro walaal waxaa ogtihiin in nabiga calayhi salaatu wasalaam 3 meelba anas baana leh rasuulka ilaahayo dadka markay kala farxadaan oo kala tagaan oo la kala cararay laana yawm alqiyaama yawma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nun yughniih hooyada waad ka cararaysaa xaaskaada waad ka cararaysaa carruurtaada waad ka cararaysaa qof walba tiisaa mashquulis anas wuxuu ku yihi rasuul allah maadaama xoodkan kusoo xasuustay yaa rasuul allah xageen kaa heli doonaa buri qiyaamaha xageen iska arkaynaa dadku waa kala fakaraya xageen kaa heli doonaa nabiga calayhi salaatu wasalaam anas oo dhegeyso yidhi 3 meel waad iga helaysaa buu yidhi miisaanka marka ummadda la miisaamayo waa taagana oo nabigu waxaa la yidhi markii ummadda lasoo horo oo la keeno wuxuu fiirinayaa ummaddiiba kusoo ordaya hada ummatii 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 markaasaa leeyahay malaa'ig waxaa jirto budad waaweyn wato markaasa leeyahay ka leex kuwaan waa ummadaada laakiin gadaashaa ayay waxuu sameeyeen iskaga leex kuwaa laga celilayaa miisaanka maarata markay soo maraan ay darka waxaas oo dhan laga celilayaa marka miisaanku taagan yahay nabiga ummaddiisuu fiirinaya ilaah u fudude ilaahu miisaankiisa culays kaga dhig ilaahu maarata xumaanta u fudude ducu halkaana taagay rasuulka ilahi salawatullahi wasalaamu caleyh leanna nabiga wuxuu ahaa raxiim wallahi ummadda aad ba ugu naxariisanay ra'uufu raxiim sidaas daraadeed wuxuu yidhi nabigu waxaad arkaysaa miisaanka ad iga helaysaa buu yidhi meesha miisaanka waxaad kaloo iga helaysaa siraadka boodada meesha la maraya siraadka inuu qofna sabiiq qof soo gurguranayo maraya qof si sabiiqu ku maraya maaratay si waxaa ka wadaa hal mar oo si aan la dareemaynin oo maaratay aada u fudud oo sariica ayuu saa u dhex maraya qofna asagoo marna ay ku dhagayso kalaabiibta maarata marna qabanayso oo marna kufayo dhacayo qaar baa ku boodaya faman zuxzixa can innaari udkhila aljannata faqad faaz ilahi subxana wa tacala laha qof walbana naga mid ah wuu ku arooraya mesha waa la maraya laakiin ilaahay
wuxuu badbaadiyay kuwa ilaahay ka cabsado kuwa ilaahay ku xiran kuwa ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa qalbigooda ay fadhiisatay kuwa ilaahay subxaanahu watacaala u dhow anasna wuxuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ahaa qof macaamilka iyo akhlaaqda iyo waxa uu sameynayo iyo siirada nabiga iyo waxa sirtiisa iyo waxaasoo na arko kadibna naftiisa practic ama si ku dhaqade u sameeyo oo ugu dhaqmo ahaa anas waxaa la yidhi wuxuu aad u ahaa qof u jecel ma kaana yuxibu nabi sal slam wax allaale oo nabi maxamed jecel yahay wuu jeclaa wa kaana yakrahu wuxuu kahri jiray ama dhici jiray ma kaana yakrahu wuxuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nibcab yahay nabiga wuxuu necab yahay wuu dhabcaa nabiga wuxuu jecel yahay aad buu u jeclaa anas qof wuxuu ahaa xataa ka fikir aakhirada aad ugu walalo oo wuxuu dhihi jiray hadal cajiiba laga hayo waxaan aad u walwalaa awalu laylatin abiitu fiiha alqabr awalu laylatin abiitu fiiha alqabr habeenka ugu horeeyo ee qabriga aan galay waa ka walwalsanaa habilaana maxaa yeele wuxuu yidhi adoo maanta ehelkaagi iyo familkaaga la joogay markuu malkood ku yimaado oo ku yidhahdo nafta soo wareeji oo aad tiraahid dib ha lay dhigo oo ku yidhahdo maya falan yuakhir allahu nafsan ilahay walan yuakhir nafsan idaa jaa ajaluha naf dib looma dhigo markay ajasha u timaado laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun saacada dib lagu dhigi maayo saacadna gadaal soo marin maayo markay taa kugu timaado oo malkood i yimaado ee uu qabriga lay dhigo anas wuxuu dhihi jiray radia allahu tacala canhu habeenkaas waa ka walwalaa waxaan kaloo ka fikiraa oo ka walwalaa wuxuu yidhi awalu laylatin sabiixatuha yowma alqiyaama habeenka ugu horeeyo ama subaxa ugu horeeya dheh ee subaxina buugka la afuufayo oo meesha waxaa u aroori doonaa subxaan allah waa ninku nabigu duceeyey oo nabi maxamed 10 sana soo jira loo keenay ilaa uu nabi ka dhimanay ag joogay ayaa saa u walwalay wa kayfa naxnu anaka walaal wuxuu yidhahdaa waxaa noqon doonaa kuwa u cararo xagga iyo naarta mise waxaa noqon doonaa kuwa u cararo xaggaas iyo jannada anas ibnu malik radia allahu tacala canhu walaalayaal waxa uu ahaa saxaabigaas daliilka ah wuxuu leeyahay nabigu ka sheekeynaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh wallahi wuxuu leeyahay haddaan soo xasuusto awalu yowmatin maalinka igu horreysay oo nabiga isheedii ku dhacdo wuxuu leeyahay waxay ahayd maalin aad iyo aad u dhuur badan maalin aad iyo aad u dhuur badan oo wax walba adaa fiiha kulla shay adaa fiiha kullu shay walba ay fulay maalinkaas maalinkuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam igu dambaysay wa fi lyawmi alladii awshaka fiihi an yumdiya ilaa jawaari rabbihi adlama fiiha kullu shay wuxuu leeyahay maalinka nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu adduunka ka sii baxayay wuxuu leeyahay mugdi bay noqotay wuxuu leeyahay subxaana allah hadal cajiiba laga wariy anas bin malik wuxuu yidhi maalinkuu nabiga dhimanayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh baal isniin ahayd wuxuu iska fayday daahi wuu saa iskaga qaaday markaas wuxuuna ummadda hore wuxuu amray inuu anas inuu tujiyo abubakr sidiiq markuu daahi saa iskaga fayday salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayaa wuxuu arkay ummaddii tukanayso nabi wuxuu yidhi wejigiisa warqadda musxafkaa moodaa saas u efays markaas wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam farxadda ka muuqatay ilaahay baa waxaa ugu bishaaray oo uu ku yidhi nabigiisa calayhi salaatu wasalaam wakaasaa ummadaadi wakaasaa way tukanaysaa ayadaa is hogaaminayso ayadaa maaragtay maamulka iyo khayrka ku wareegay nabiga aad buu farxay wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wallahi markii uu albaabka uu dahsaa iskugu daday walwal baan ugu bilowday nabigana meeshii buu ku gooriyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh anas wuxuu leeyahay nabiga markii aan soo kaxinay oo aan la soo aadnay ana wuxuu ahaa qof gurigiisa jooga aad baa walwal u leeyahay murugu igama horreeyay maalinkaas markuu nabiga iga tagay adduunka iga dhaqaajiyey waayo qofka soo koriyay aabbihii gacanta kugu hayay aabbihii aad fiirsanaysay aabbihii caalamkao dhan adig kaaga sokeeyey ee adoo 10 sano jir tasawar 10 sano jir adigoo ah qofka lagu keenay maalinkaad 30 ama xoogaa aad gaartid ka warran markuu kaa baxay oo weliba aad jecleed oo habeen maalin aad idhihiisa waayo saxaabada wallahi waxay jeclaayeen in nabiga arkaan nin saxaabada ka mid wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah wallahi xaaskayga iyo carruurtayda waan kaa jeclahay mar allaala markaan wejigaaga aan waayo oo gurigayga tago ooyaa buu yidhi waxaan rabaa inaan dhehda maalinka safiiriyo saas ayuu jeclaa nabiga calayhi salaatu wasalaam anas ibn malik wuxuu leeyahay markaan soo baxray ee nabiga aasnay ee aan ciidda dhignay ayaa faadima bint rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waxay tiri ataabat anfusukum wa naftiina waxa idin qurxisay an taxta turaab ina nabi maxamed ciidda ka hoos marisaan oo badalka qaataan oo qof walba intuu badal ciidda qaado inuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku shubo ma taasay naftiina idin ogolaatay tiri faadima bint rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam anas ibn malik wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam inta aan la joogay cilmiga aan ka qaaday waan celi waayay inaan ummadda u gudbiyaa waajibka ay fuulay anas
saxaabo badan baa ka aflaxday xirtiisa ama dadka wax ka qaaday kumanaan ilaa tiro fara badan bay gaaraan inta wax ka aflaxday asaga cilmi ka qaaday Anas ibn Malik ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu u aqbalay ducadii nabiga alayhi salatu wasalaam oo nabigu wuxuu ugu duceeyay Allahumma arzuqhu maalan wa waladan wa barik lahu ilaahayo hantisi oo nabigu xali Anas wuxuu ahaa tujaarta aad ugu tujaarta magaalada Madiina oo aad looga dambeeyo bal waxa la sheegaa ganacsigiisa laga shaqeeyo tibirta oo asaga lahaa iyo beeraha tibirtu lahaa dadku bar 6 bilood bar asaga soo go'yirtaan 6 bilood bar bay soo go'daa dadku meesha sanad iyo muddo ku qaato Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu awlaad farabad Ilaahi subhanahu wa ta'ala si waxa la sheegaa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu oo leeyahay inni ra'ay waxa arkay awlaadayda ciyaalkayga ciyaalkay si 3 jiil inuu arkay wuxuuna ku dhitaaliyada tiradii 103 caruurtiisa si dhaleen ayuu dhiisa ilaa 100 beer gaareen baa caruurtiisa Ilaahay u barakay inuu awlaad badan ku siiyo hatira ku siiyo barakada laga qaado waa balaayo kale laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala Anas ibn Malik wuxuu ku badbaadiyay ducada nabiga alayhi salatu wasalaam Anas ibn Malik nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu hada jeer ku duceysan jiray u dhijiray aniga waxaan sameeynaya maalinta qiyaamaha nabiga hadaa la kulmo maadaama uu yiri miisaanka u arkaysa iyo xawdka iyo baarakay siraadka ay u kulmaysa waxaan ku dhihi doonaa nabiga alayhi salatu wasalaam oo aan rajeynaya inaan nabiga shafaacaysa helo oo waxa ku leeyahay ya rasuulallah rasuulka ilaahayow qofkaan ma taqaana hada khuwaydibuka urays kan waa shaqaalahaadi arisariso ya rasuulallah ha iloobin waa saaxiibka waa qofkii ku khidmay jiray arisariso maanta shafaacadaadii uu rabaa Anas ibn Malik jaceelku nabiga alayhi salatu wasalaam u qabo walaalyaal jaceelku nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam u qabo baaliku dhibanay Anas ibn Malik wuxuu ku dhintay Basra ay ku dhintay waxa la yiraahdaa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu baaliku dhibanay wuxuu codsaday in uu nabi alayhi salatu wasalaam laha illa la aaso oo uu barakaysto walaalyaal nabiga wala barakaysan jiray nabiga heede wala barakaysan jiray oo yaa barakaysan jiray asxaabtiisa nabiga canuuftiisa baraka ahayd ويسيسة بركة أهي وهو نقول لك بركة أهي لكن بعد النبي بنانه هذا بنان الله أبو بكر بالا بركة يسلح عمر بالا بركة يسلح عثمان بالا بركة يسلح علي بالا بركة يسلح رضي الله تعالى عنه أجمعين بركة أي كده بيسبجل لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبدو تبيس ولا كل دفجري بل نيجي النبي تو استوى بالا كده ديك النبي عليه الصلاة والسلام نبى عبد النبي حكي أرسل سبارت ديك صوت هذا حقه تي أو عبد شنو لب ورب حين ديك النبي هذا وفكر بالفير ديك وحلاقة وجعلك النبي الله صلى الله عليه عليه قاربه وحيد على صحابة النبي الله أكبر الله أكبر والله محبة الرسول هل إلى نورة الله نفسه عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحيد على جعلك النبي قال كبده صحابة كبده مال ولا كبده wuxuu fadhiistay meel buu fadhiistay geed hoostiis markaas ku kaatay markaas ya maxaa ku dhacay meesha ma taqaanaa biir nabi hadda koor fadhiistay ku kaadi marfiir meesha fadhiistay oo ku kaadi oo laba xaajada iyo culays ay iskaga dajiyay ayaa la daba istaagaya oo maartay lagu sameeyaa in lagu xaajo guto nabiga waxay ka jeclaayeen indhahooda ka jeclaayeen waxaad garanaysaa saxaabiga jaliilka ah leeyada Khubayb ibn Adi asoo laga jaray saka laga jaray gacmaha laga jaray oo Quraysh say doona ka sameeyaan oo xiriir hadal jeejese atuhibbu makanaka atuhibbu an yakuna makanaka Muhammada man jacasha leeyay inuu nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam makaankaaga iyo booska hadda aan kugu hayno uu nabiga joogo hadal cajiib uu yiri wallahi hadal cajiib uu yiri oo qofka iimaanka laga rabo wuxuu yiri iska daa inaan jeclahay nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam inay dhibaato ku dhacday oo waxa aan sheegaysaa aan sameysaan wallahi alazim inay qodax budo ma jeclayo nabi alayhi salatu wasalaam inay qodax budo ma jeclayo yiri anigu ehelkayga iyo caruurtayda iyo qaraabadayda aan ku dhex jiro ومع ذلك ما ترى الكار iska daa waa meesha ku soo islaamay saxaabo fara badan ay ku islaameen in la yaabeen mucjizooyinka iyo maaratay jaceelka nabiga loo qabo diki roob ugu weynaa
baa waxaa la yiraahdaa wuxuu baqay saxaabada nabiga aad bay u jecel yihiin naftooda hurayaal weyn maanta meesha idaacada ka dhahan heegaa naftiis hure naftooda u hureen marka waxaa la yiri wuxuu yiri kuwa naftooda hurayaasha oo ninkaan uu xubbiga iyo jaceylka qalbigooda ka buuxiyay waxaan rabaa inaan la kulmo ee haddaad qabataan mid ka mid ii keena gacanta waxa usoo galaan waa ka sheekay doona insha Allah taala Abdullah ibn Hudhayf as-Sahmi ee gacanta usoo gala marka loo kale waxaa la yiri midkaan waa min as-saabiqiin al-awwaliin kuwa hore ee islaamka hore ka qaatay marka loo keenay ayuu saa u fiiriyay markaas yiri waa islaam ka waran haddii aad gaalowdid markaas yiri gaalowda raalahow adiga iyo carab oo dhan waxay haday isku tagaan bulkigiisa oo ay maartay leesiyo iyo gaalow bulkiga lagu siriya wallahi habeenka xalaa u tagay dibka iyo dhibaatada loo ay wal cadaabay ay ahad lahaayeen nabi maxamed ali sallallahu alayhi wasallam waxaad garanaysan waana ka sheekeynay aan ku celiyay Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu inuu nabi maxamed ali sallallahu alayhi wasallam rigoodka ay galeen oo dhabtiisa uu ku hayay oo nabi uu seexday ee waliba wax ay maartay uu baalka qarinay jacayl nabi uu qabo inuu hurdo ka ciyo ilmihi ka soo qubanay dhiisi ay ku daatay nabi alayhi salatu wasalam ee uu booday uu nabi yiri maxaa ku ay u sheegays xanuun baa hayo wama cadaalika dari haba kamale Ali ibn Abi Talib oo inuu ka sheekeynay nabi habeenka ilaa diray gaalada u qorsheeyeen wuxuu seexday meeshii uu nabi alayhi salatu wasalam jiifay naftiisa u huray naftooda wax u hureen nabi alayhi salatu wasalam bi abi wa ummi hooyadii abi ku furay ibn jirin nabi alayhi salatu wasalam nabiga wuxuu ahaa qof caadil ah oo tusay jaceelka nabiga qaba waxa kamid walaaliyaan saxaabada ridwanullahi alayhim saxaabi liyaado abi ayyub al-ansari inuu filaya nabi alayhi salatu wasalam markuu arkay habeenada kamid nabiga baahay intay qabatay oo uu soo baxay Abu Bakr uu soo baxay sidoo kale Umar ibn Khattab intuu baahay isku wada keentay ayuu nabi alayhi salatu wasalam wuxuu yiri haye maxaa idin soo saaray wallahi gaajir rasaat wuxuu yiri waxa idin soo saaray anay soo saaray ee kiciya guri waxa saxaabiga loo tagay gurigiisa la yimid waxa la saxaabiga jaliilka ah isla markiiba nabi alayhi salatu wasalam dheef buu qalay markaas uu sooray ee uu soo dhaway salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxa ka wada waliba xal intuu farxay ayuu nabi wuxuu ku yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi war mid caanaha leh kada wuxuu yiri Allah maanta iga sharafa tibirti buu ku dhaxay waxa ka wada say nabi u jeclaayeen si la soo koobi karaa anu soo laabana marka Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Anas ibn Malik dowrka uu islaamka ka qaatay markuu nabiga dhintay alayhi aad u sareeyay oo waxa la yiraahdaa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi oo ataqaadaan nikas lagu mana culimada qaar ay dhahaan ila gaabsada fiican Abd Malik al-Marwan ayaa maarta amiir mu'miniin markaas ahaa talooyinka inta badan qofka laga qaadan jiro ahaa Hajjaj ibn Yusuf xitaa uu qaybay jiray Anas wajil wax shadu laha lagu degdeg jirin illa uu dhintay ilaa 93 jiray markay ahayd intaas oo dhan qof lagu qaybeeyo oo ku soo barbaaray gacanta nabi alayhi salatu wasalam oo ku soo barbaaray diinta ruucadaab ahaa waxa la yiraahdaa wuxuu u gaaray waqtigiisa taabici rag badan baa la kulmay Anas ibn Malik awlaadiisana waa awlaad bay sideen intaas oo dhan wuxuu ku helay barakatu nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su'aala markaa taagan Anas ibn Malik khidmadu nabi u khidmeeyay wuxuu ku helay intaas oo dhan ka waran maanta markaa diinta u khidmeeyay adiga nabiga booskiisa kutubta maanta agteeda safar ee khayr ka buuxo haddaad u fakartid ood qaadid oo aad hal xadiis ka baratid ubada gaarsiis daacim ah Anas ibn Malik dadka khayr gaarsiiyay walaalayaal waxaan kala baxay faa'iidaan ka qaadan waxay tahay inuu nabi Muhammad alayhi salatu wasalam uu soo saaray jiil inuu soo saaray ummad dadka wax tartay inuu soo saaray dad ay ra'yi al-ayn nabi wuxuu sameeyay inuu ku arkeen haday maamulada noqon lahayd haday macaashada noqon lahayd intuba aad arkaysa walaalayaal هنيئا لأنس ما لنا هاي وأنو مارت تهنيدنا سيد دعوة دور كوين وقارسيستي ومارت كقبتي بل وحالي رهدا وحوها ثالث اثنين في رواية حديثي لبض مثل دحيوها أو أبو هريرة عمر عبد الله بن عمر قف كاس دحي أنس بن مالك وها دعوة حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيل لقى سو جوري أمد لقارسيو ما أنت محنا بدن دور كدعوة ما قاعدنا ما أنت وحاليا إنه جامعة صوت ما يقفكي وما أنت أصلا كم مغنى وإلهي علم السيء بل لقيا بدرس كسر أبجو إنه هل عين الشيء ولا ليال خصوصا ذاتك يوروب يا أمريكا يا كندا يا عالم كسوق يوروب أيوة حكوا عالم كله وذي يمت أكسوندا وحاتين سفراء يا مسافيراتين إلهي أقول لكم درس
والله وحنا هي نيابة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد وكيل كنا هي إلهي سبحانه وتعالى لك أنه كان صار قرني قصة عاجز أنا أقول فرحه من فينش أما ده كان مارتي في لان كتري هي مقالة مغش يدالي مقالة واجب محاكمة إسلامك أو واجب محاكمته مركو يمد أيوة حيل الحمد لله إلهي وما صبيري مقالة مقدشو يا الصومالي لأن دجال كده مارتي قرحي أو نوصل قحيم بالفلان وحيل أنا في فلاديس ماسكها خمرة يقولون كيو كلامي إسكات تنتو إلى هنا بقى قورين لكن الصومال ما كان وصل جبتي إدارك في الله إمادين وحيل إلهي سبحانه وتعالى وحصونا ونجي إن أكو إسلامه وحيل شركة سامسونج أو صارته أما تلفونه قولوا البيت قشير لكن أنكم كان دين تنقبل قشين قولوا كوي كاتين إلهي سبحانه وتعالى قحبه يكون ذي دل جير عن نوع إمادين دل كنا ولا ريال قولي أمان دقنته وحلاقي يا ما لبعض سنة كهر أما صدق سنة كهر إن ضفار إيه أصنام إيه خمرة إيه قرن لو سمين جري لكن الحمد لله رب العالمين ما أنت قريبا كسجودنا وما عرفت صلينا ويا لان عرفت القرآن ما عرفت أكو آخر سنة دمرك ومحجبات دينت بحجابها موقضة دعوة دور كذا والله مهم جدا والله العظيم دعوة قف كبره كشقيه شاعرت له موجينيا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شاعرت من قفك موجينا تاس أي وحياتها تقوى القلوب قلبك بدك قشر وبدك قلوب تودك القشر تاسوي بدك كلا كمان محجبات حجابك قبته مركي قاله هرمانيس والله بدفعك قاضيه بدفعك حق بديه بحيا لي وحي وضع آيات كاملة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآيات لما سمعتها وحان كان يستي أحد من علماء الصوماليات كمده وأدي سجيتي دعوة الدور كذا يعني كجر راي وحاول لي هاي قبر صوماليات يا إسلام عدانة أيام ميل صوباكت أيدك صباحيسو ولما قالوا وحين قبت نلقى قاوم بقبت قبل أنا حجاب بقبت أدم حجاب ليد وقت برف كان مركز وعلى مع الزوم وحالما وقت كل له لا قالوا أيوة حتى ولا لي كالي أما قبر كالي وحتى بيها الجبري بيها كل الدربي بحاكوا ما تحكوا قرري مركز حتى كل كان كل كآخره أي كذب هذا ما أنت كل أتكي سواي لكن واحد وادونا إن أديك كل وقت كل كان يكذب ككل كمان كلمة دي قال لي ويكون وقت هذا الغريبة كعصب بارتا بكتبسي كنيسة بيتك وحي بارتي كلك آخر الشيء وحيها ده كوان قالوا دين باش كوه ياره بوتاني بين بكوه ياره وحي نيجي عيسى كعفي هرا وصعو قبل وحي كوه عويس هذا أخيرا قبل بكي بارتي آخر العذاب دري وقاتي باش يبركوا إسلام وهالكلمة وقف إلى أفكي سوبري إنه وقف كان صاحب الغالية ما تقول ريال ديتي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وينو كيرين ويكون دالين صحابة ويسود داشي تابعين بيسو أتبت تابعين واد دالين تابع بيتبت سلف كبيتبت بعد الديت وحين نقطة إن سا كتابة الله وشرح لنا إن سا وشرح هي كتابة بيشة أي كسرت ما الله بحره وحارب أن كتابة شرح هذا قبل الجريم إن بيشة لقى قاضي أول الجارسي وبدأ أباها الجارسي ويل كاجا أما جمال هذا أما جمال مسلمة ده وبعد براك تاجر وبذكر بسيدك بوحة كور عرفت الراقص بإمارة بلاي قضيان يا أم غربدة ما يرحم لهؤلاء يا أم فكري بل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حج كليل سو حجي انتو بدأ كان حكى عكيري ألا هل بلغت الرسالة وربيار ديدي سو قارسين نعم بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادي حتى أتاك اليقين نبي الله ها حلك وأنا سو قارسي ديت وأنا سو قارسي برقة برقاتي كعندها نبي حين بارت القيامة والدين بحالك جواب جوتان وحنكون قرينا إن حلك هذا قلت والله وحنكون قرينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه حلك يسقطي لكن نبي حولها ولا إذا قاعدة إمارة أدوا عني رحمكم الله يا إمارة ينقد بني وإله الحرستا سحابة باركة تدري حلك إنه ساريه في مشارق الأرض ومغاربها عالم كنا بجارسيين إلى إله وكم عابي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا أمارة القرآن إله تعالى ورحسمه والرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا ليال ما تعلموا ويد ذلك كتاب نقص وقرين بالله عليكم وحن نفتي تين كبرى رجلية إلى الدعاء نقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وحال قف يا كهذا المعن يا كورها معن قف إلى حديث وضع ويري داعية وشرف بيكوتها أنكف عيسى دوركاس أنس بن مالك وحول سوقاس حديث النبي وكان معت إلى قيام ساعة خير ساد راديت أنس بن مالك
تاريخ سواء كسو كوبنا بإذن الله تعالى إنتاس أقوم حنا بإذن الله تعالى وحنا كحجز الناس صحابي كلا أو أمارت أنسلي هاي صحابي قال يا سعيد بن عامر الجمحي أو أصغر عن قيمة كمان كشيء دور التاريخ الولد كيسا يحال كيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد.